السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وعن داوديال كسر هذا قناة كفرين. ما أنتم عندنا وذاك شيكو رنتي كعمر قادشو يودي رجلين. لبنين أيها كل ماي قل كم إذا إسبتال ضد كان لجودويه. لبضنين أيها مدوح وحاي داوع هذا علوس. mana fariisan karin noloshiisana wuxuu ku qaadanaya intuu isbitaalka ku jiro jiif halka kan kale uu ahay nin fariisan kara wuxuuna xigay ninkaasi dhanka daaqada mar walba ninkan saaxiibkiisa ee aan fariisan karin ee jiifka ku qaata noloshiisa ayuu uga sheekeeyaa waxa uu daaqada ka arko waxaana uu ku yiri waxaan daaqada ka arkaa meel cagaaran oo dadku ay u soo daawasho tagaan kuna raaxaystaan waana meel aad indhuhu ugu doogsadaan ayuu yiri muddo kadib ayaa waxa geeriyooday ninkii daaqada xigay ee uga sheekeyn jiray saaxiibkiisa qolka la jiifa waxa uu daaqada ka arko kalkaalisada ee timid meydkii ay banaanka u saartay ninkii kale ee aan fariisan karin ee dhaawac culus ahaa ayaa codsaday in halkii saaxiibkiisa uu ka dhintay ee daaqada xigtay loo wareejiyo waa laga ogolaaday halkii ay loo wareejiyay kalkaalisadii way iska baxday markii ay sariirta kale u bedeshay ninkan kadib wuxuu isku dayay maadaama uu fariisan karin daaqadana in la fariisto maahan aan la arki karin inuu fariisto laba maalmood ay ku qaadatay oo marba uu isku dayay inuu fadhi hamiyo ugu dambeyn uu ku guuleystay inuu fariisto laakiin daaqadii muxuu ka arkay daaqadii ay wuxuu ka arkay gidaar ku gudban mana jirto beer dhinaca daaqada xigta waa uu yaabay kalkaalisada ee u timid wuxuu ku yiri ninkii halkan ka dhintay muxuu beentii ugu sheegay waxay tiri sababta uu beenta kuugu sheegay waxay ahayd dhiirigelin oo adiga ku dhiirigelinayo waayo maanta maadan fariisateen haddii uusan shalay intuusan dhiman ka hor uusan ku dhiirigeli lahayn waxa ku dhiirigeliyay ee fadhiga maanta kuu suurageliyay inaad caafimaadana suurageliyay waa inaad haminaysay inaad aragto daaqada iyo jawiga quruxda badan ee uu ninkii geeriyooda kaaga sheekeeyay waxay tiri marka maanta ayuu ku anfacday isagoon kula joogin beentii uu kuu sheegay ninkii halkan ka geeriyooday ayay tiri kalkaalisadii wuxuu ahaa nin indhool ah oo maba arki karin waxba laakiin adiga ayuu fariinkaaga tagay marka sheekadan waxaan soo qaatay qof walba waxa uu jecel yahay ee uu noloshiisa doonayo haddii uu ku dadaalo waa uu ka guul gaari karaa dad badan ayaa riyooyin leh laakiin riyooyinkooda waxaa hortaagan wax qabad la'aan ninkaas daaqada isku dayay in uu arko isagoo aan fariisan karin waa uu fariistay si uu daaqada u arko waayo wuxuu doonayay in qolka uu ku jiro ee afarta dhinaca uu ka gudbo una gudbo beerta quruxda badan ee looga sheekeeyay marka isku daygu waa qayb ka mid ah nolosha wax walba oo guushaada ah isku day si aad u guuleysatid. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.